Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka la yaabka dunida oo toddobaadkiiba mar aad ka heshaan janaalkan Axmed Jakarta Official Media. Barnaamijka toddobaadkan waxaa idinku hayaa 3 qodob kuwaas oo ugu xiisaha badnaa toddobaadkii aynu ka soo gudubnay. Qodobka koowaad ayaa noqonaya mukulaal loo xukumay 710,000 oo magdhow ah. Maxbuus ka qalin jebiyay jaamacad uu ka bartay culuumta diinta Islaamka iyo nin aan qubaysanin muddo 60 sano ah. Sheeko xiiso badan. Mukulaal sawirkeeda loo isticmaalay xayeysiin ayaa loo xukumay lacag dhan 710,000 oo dollar oo magdhow ah kadib markii sida la sheegay shirkadda sawirka isticmaashay ay ku xadgudubtay heshiis hore u dhacay. Shirkadda mas'uulka ka ah mukulaasha oo lagu magacaabo Crespay Card Limited ayaa dacwad ku oogtay shirkadda samaysa bunka la cabo taas oo markii hore lagula heshiiyay in sawirka mukulaasha ay u isticmaasho bunka qabow oo kaliya, balse waxay u isticmaashay alaabo kale oo dheeraad ah. Mukulaasha oo lagu magacaabo Tardy Soy ayaa sawirkeeda aad u baahay sanadkii 2012 waxaana aad loola dhacay shucuurta murugada leh ee wajigeeda ka muuqda. Sanadkii 2013 shirkadda waxyaabaha la cabo ee Grand Beverages oo ay wada leeyihiin wiil iyo aabihiis oo kala ah Nick iyo Paul Stanford ayaa qoyska mukulaasha leh la galay heshiis ku kacaya 150,000 oo dollar si sawirkeeda la yaabka leh loogu dhajiyo bunka ay shirkadooda samayso. Shirkadda Grand ayaa iyaduna dhankeeda ka furtay dacwad ka dhan ah qoyska mukulaasha waxayna ku eedeysay in sidii lagu heshiiyay dhankooda aysan ka soo bixin waxyaabaha qaar. Mukulaasha oo 6 sano jir ah ayaa mulkiile ka ah shirkad magaceeda lagu qoray iyo waliba agab kale. Waxaa xitaa jiray aflaan ay iyada jishay mukulaasha iyo bandhigyo telefishin ay ka soo muuqatay. Nin maxbuus ah oo magaciisu yahay Cabdulraxmaan una dhashay dalka Sacuudiga ayaa ka qalin jebiyay jaamacadda Imam University uu ka qaatay shahaadada koowaad oo uu ka diyaariyay culuumta diinta Islaamka ee aasaasiga ah. Anuu da'diisu tahay 42 sano jir kuna jira jeel ku yaala dalka Sacuudiga waxa uu ka mid yahay 114 maxbuus oo markii ugu horeysay iyagoo xabsi ku jira ka qalin jebiyay waxa uuna rajeynayaa inuu waxbarashadiisa sii wato inta xukunkiisa ugu haray. Wasiirka arrimaha gudaha Sacuudiga ayaa dejiyay hanaanka dib u habeyn oo lagu sameynayo maxaabiista oo uu bixiyay taasoo uu kaga hortagayo in ciqaab uun ku dhacdo qofka xorriyadiisa laga qaaday. Barnaamijkan oo ay ka faa'iideysteen maxaabiis fara badan kuwaasoo awood u yeeshay in ay heer jaamacadeed ka gaaraan kuna noqdaan bulshadooda caadiga ah iyo aqoon leh. Haddaba sidii hore gebi ahaanba waan ka duwanahay marka loo eego sidaan ahaa markii xabsiga la ii keenay waxaanan dhammaan asxaabteyda ku waanin lahaa in aanay waqtigooda iskaga lumin kana faa'iideystaan waqtiga ay xabsiga ku jiraan waxbarashadoodana sii wataan. Waxa uuna rajeynayaa in tacliintiisa sare sida ugu dhaqsiyaha badan u dhammaystiro ayuu yiri Cabdulraxmaan. 114 maxbuus oo ku xidhan xabsiga ku yaala Sacuudiga ayaa dhawaan qaadan doona shahaadooyinka jaamacadda culuumta kala duwan ee diinta iyo maamulka oo ay ka qaateen jaamacadda Imam kuwaasoo ka faa'iideystay hal abuurka uu keenay wasiirka arrimaha gudaha Sacuudiga Mr Mohammed bin Naif. Xafladda qalin jebintooda ka soo qayb gali doona eheladooda iyo saraakiil sarsare ee boqortooyada ka mid ah. Nin aan qubaysanin ku dhawaad 60 sano. Sheeko xiiso leh. Inta aad ku nooshahay adduunkan waxaad maqlaysaa amba aad la kulmaysaa dhacdooyin ka yaabiya isla markaana fajac kugu abuura. Haddaba daawadow bal ka waran haddaan ku iraahdo waxaa jira nin aan qubaysanin ku dhawaad 60 sano oo noloshiisa ka mid ah. Ninkan ayaa da'diisu ay tahay 80 sano jir waxaana lagu magacaabo Abu Hadij wuxuuna u dhashay dalka Iran. Ninkan ayaa waxaa la ogeyn waxa ku dhaliyay in uu noloshiisa ciqaabtan u geysto waxaana dadka ku dhow ay sheegeen in ay maskaxdiisu taam ay tahay uusan waalneyn. Dhanka kale waxa uu ninkani ku nool yahay meel ka gaar ah xaafadda ay degan yihiin dadka kale. Halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan.